Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran kanaalka Darul Khayr Media iyo Naciim Studio. Halkana waxaa idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee Ramadaanka. Qisada maantana waxay ku bilaaban doontaa sida tan. Boqoradii hore ka mid ah ayaa maalin soo dhexmaray dadkiisa isagoo oo u ballan qaaday qofkii uu ka helo kelmad wanaagsan inuu siin doono abaalmarin 400 oo diinaar. Boqorkii siduu u wareegayay mar dambe wuxuu la kulmay oday 90 jir ah oo beeraya geed saytuun ah. Boqorkii ayaa ku yiri, maxaad u beeraysaa geedkan adigoo da' ah oo isaguna uu ku baxayo 20 sano oo geeridu ayaaba ku haysa. ayuu intuu qoslay ayuu ku yidhi, kuwii inaga horeeyay way beereen, anaguna wayna goosanayna. Markaa ka bacdi anaguna waan beeraynaa si ay u goostaan kuwa soo socdo. Boqorkii ayaa hadalkii aad ugu helay, waxaanu ku yidhi, kelmad wanaagsan ayaa tiri, sidaa daraaddeed waxaan ku siinayaa abaalmarin 400 oo diinaar. Odaygii ayaa dhoola cadeeyay. Dabadeedna boqorkii ayaa weydiiyay oo yidhi, maxaa u dhoola cadeynaysaa? Odaygii ayaa u jawaabay, geedka saytuunka 20 sano ayuu ku dhalaa, aniguna keydii hadda ayuu ii dhalay. Waxaana la socotaa qof kastoo wax wanaagsan sameeya inuu abaalmarin heli doono. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaan nagu cusub tahay nala saaxiib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.